بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. intaan weli aan hadlin waxaan rabaa inaan meeshan idinka sheego wafdigii aan hogaaminaynay aniga sanad xaaji. waxaa nala socotaa gabar la yidhaahdo Fatuma Dulo oo senatarka ee magaalada degmada Isiolo. waxaa nala socdaa nin wasiir ahaan jiray oo haddana ka ee senator West Pokot oo la yidhaahdo Samuel Bogisho. waxaa nala socotaa gabar iyadana senator oo la yidhaahdo senator Falxado Deeqo oo reer Gaaris ah. waxaa nala socdaa Yusuf Xasan xildhibaan oo Kamkunji Isliye aad garanaysiin. waxaa nala socotaa gabadha keli oo la soo doortay oo degmo laga soo doortay oo la yidhaahdo Sofia Cabdi Tori. waxaa nala socotaa gabadha xildhibaanta haweenka qaabisho countiga Garissa oo la yidhaahdo Canab Guure. waxaa nala socdaa xildhibaan oo ka shaqeeyey Soomaaliya oo ciidamada Kenya ka mid ahaa haddana ka mida guddiga difaaca iyo foreign relation oo la yidhaahdo Colonel Raso. waxaa nala socdaa xildhibaan ka yimaaday Mandera constituency la yidhaahdo Banisa xildhibaan Kulow Macalin. waxaa nala socdaa xildhibaan ka soo jeeda Wajeer oo la yidhaahdo Ahmed Kholosh. waxaa nala socdaa xildhibaan ka mida guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda oo ka soo jeedo countiga Machakos oo la yidhaahdo Charles Kilonzo. ugu dambeynna waxaa nala socdaa xildhibaan Professor Omar oo laga soo doortay Habasweyne. marka waxaad iga raadihanaysiin khudbo yar oo ka socota dowladda Kenya ayaan rabaa inaan akhriyo. waxaan rabaa inaan ku akhriyo afka Ingiriisiga. Your Excellency Ahmed Mohamed Islam, the President of Jubaland, former President Sheikh Sharif, former Speaker and former President of Southwest Somalia, former Minister and former President of Galmudug, leaders from the federal member states, members of Parliament and senators from the Federal Republic of Somalia, the Speaker and members of the Jubaland Assembly. Ladies and gentlemen, it gives me pleasure and honor to stand here on behalf of the President and the people of the Republic of Kenya on this very historic occasion of the inauguration of His Excellency Ahmed Mohamed Islam to serve a second term as the President of Jubaland Regional State. Through you, Your Excellency, we wish to convey our warm greetings and congratulations to the President of the Federal Government and the people of Somalia for the great ongoing project building strong and secure federal state. On behalf of the President and the people of the Republic of Kenya, I convey hearty congratulations on your elections as the President of Jubaland, and on the same breath, I commend the people of Jubaland for demonstrating democratic maturity by participating in the electoral process in a very peaceful manner. Your Excellency, election is a very clear affirmation
of the great trust and confidence that the people of Jubaland have in you to lead them to a very bright, peaceful, and prosperous future. Jubaland has been a buffer for the whole of East Africa. We congratulate Your Excellency for being at the forefront in the fight against terrorism. Kenya and Jubaland have a special relationship of being the immediate neighbors. And in this regard, the government of Kenya and the Jubaland administration have worked closely together over the years in addressing common security challenges, especially those posed by the Al-Shabaab. We will continue to work closely, of course, together with the federal government of Somalia, not only to forge a formidable, strong front against terrorism, but also in state-building efforts. May I commend the Jubaland Independent Electoral and Boundaries Commission for successfully conducting the elections, notwithstanding the challenge it faced in the process. We also thank the federal government of Somalia and the international partners for supporting the commission through the entire journey. I salute all the candidates that vied for the president for demonstrating leadership, and I call upon you, Your Excellency, President Madobe, and all these great leaders here today to now close ranks, work together in improving the livelihood of the people of Jubaland. The eyes of the people of this region or state are on you, Mr. President, to work together to deliver on their dream for a better tomorrow. warkii dowladda Kenya wakas hadda waxaa soo aray warkii aadan bare waxaa nala socda waani loogay deputy governor Wajir county-ga Wajir Ahmed Ali Werar. Mheshimiwa, I'm very sorry. waxaan rabaa warkaygana in video waxaana mahad weyn u celinayaa madaxweyne Xasan Sheekh oo aan waqtigii uu madaxweynaha ahaa aan zaid iskula shaqaynay iyo madaxweyne Sheekh Shariif madaxweyne Deni iyo speaker Kenny hore iyo madaxweynihii South West iyo walaalkay saaxiibkay wasiirkii hore iyo madaxweynihii hore Galmudug. Soomaalida waxay dhahdaa islaan uunsan jirin hadday uunsato meel ay ka guban jirin ayay ka gubataa. hadda waxaan u malaynayaa Soomaaliya dad siyaasiyiin oo awal uunsan jirin ayaa hadda uunsanaya marka meelo badan laga gubanaya. annaka haddaan nahay jaaliyadda ama siyaasiyiinta ama bulshada Soomaaliyeed ee waddanka Kenya, annaka waxaan rabnaa Soomaali oo degan oo nabadgelyo iyo xasilooni oo madaxda Soomaalida meelay jiraan ama siyaasi aadaan oo dowlad goboleed ama siyaasiga dowladda federaalka
وحارنا وقت كستا إلى ودنيان أمدا يا شعب كصوماليا وطوضة يتن أمدا هرمريان أنا كودك كينيا أنا تاريخ أيام لنهاي أو قف ترتري كريم مركي تاريخ للقرى هيستوري للقرى دولة كينيا intay u qabatay Soomaaliya ilaa waqtigii burburka wadan u qabtay adduunka ma jiro dadkii qaxootiga soo dhaweeyay anaka ahayn oo maanta ilaa maanta qaxootiga Soomaalida dadka magangeliyay oo gurigoodii labaad waa anaka wadamadan jiiraanka hadda aad garab ordaysiin waqtigaas way jireen laakiin Soomaali ma soo dhaweynin dawladii hore oo markii madaxweyne Moi uu jiray iyo madaxweyne Kibaki dawladii Soomaali dib u soo dhisayeen waxaa lagu dhisay egi laga reebati carta waxaa lagu dhisay wadanka Kenya maantana alxamdulillah Soomaalida Kenya iyo Soomaalida ku nool Kenya meelay ka yimaadeenbo qiimo iyo sharaf ay ku joogaan wadankaas dawladdan ka muuqanaa baarlamaanka ka muuqanaa maxkamadahan ka muuqanaa jaamacada carruurtana ka muuqan ganacsigan ku jirnaa marka waxaan rabnaa Soomaali oo mid ah madaxweynayaasha meesha fadhiyaan iyo madaxweyne Deni iyo madaxweyne Ahmed Islam waxaan idinka baryaynaa inaad ummadda Soomaalida loo tanaasulo laisku keeno la mideeyo madaxnimada maanta ay jiri berri ma jiri doonto dawladda maanta way jiri berri ma jiri doonto laakiin shacabka iyo waddanka uu jiri doonaa marka anaga maanta waxaan idiin wadnaa message oo reconciliation oo la isku dulqaato siyaasiga wuxuu leeyahay dhib badan buu leeyahay waa guurka oo kale siyaasiga bed of roses mooho waliba wadan hadda soo kacayo oo dhibaatooyin badan soo maray marka waxaa la rabaa experience-ki siduu Sheekh Shariif uu dawladda ku waday in la weydiiyo madaxweyne Xasan Sheekh in la weydiiyo prime minister hore in la raadiyo oo aqliga la isku keeno oo markaas ay too Soomaaliya hal meel loo jiheeyo annaka nasiib darro inoo tahay inay madaxda Soomaaliya iska qabsadaan inay madaxda Soomaalida ay dad kale ay raadsadaan xarana inaka dhaxdiina annakana diyaar ah idinahay odaygaas noo weyn wuxuu jiraa 80 buu jiraa wali madaxweynaha waddanka annaga wuu la tashadaa annaga tashalay waxaan dabaaldegaynay maalin la yiraahdo Moi Day waxaan sugaynay inaad dabaaldegaa samaysiin Xasan Sheekh maalintiisa ama Sheekh Shariif laakiin waa nasiib darro Sheekh Shariif waxaa dhahday boorka ma bixi karo marka madaxdii hore waa in la sharfo Sheekh Shariif waa in la sharfo Sheekh Xasan Sheekh waa in la sharfo marka Soomaaliya waa in la isku dulqaato ugu dambeyn maamaadi hore waa idin dhiibay mid kale idin dhiibaya
laba nin baa meel isku raaceen waqtigii salaada markii la gaaray ayuu midna wuxuu noqday imaamkii midna wuxuu noqday kii ku daba tukanay kii imaamka markuu salaadii uu xirtay la rabay inuu akhriyo faatixada wuxuu akhriyay ataxiyaat kii daba taagnaa muska amase wuxuu yidhi markaad fadhiisato waxaad akhrin doontaa sugi markaad fadhiisato waxaad akhrin doonto ee sugi hadda idinka Soomaaliya saan u arko meeshii laga rabay inaad faatixada akhrisiin yaa ataxiyaadka ka bilowdeen marka dib isku noqda maanta waa idiin imaanay madaxweyne annaka dadka waxay isweydiiyaan Kenya interest-keeda muxuu yahay annaka interest kale ma qabno interest-kana waxa weeye Soomaali oo nabad ah oo degan midda labaad interest-kana muxuu yahay Jubaland 800 kilomitir oo xuduud aan la leenahay annaka Jubaland waxa qasab ay nagu tahay national security interest-ka waddanka annaga wuxuu ku xiran yahay Jubaland aniga nila hadlayo degmada liga soo doortay 143 arday oo jaamacad ayaa hal maalin lagu dilay ciidamadana maalin kasta meeshan joogaan oo ku dhamaadaan ayagoo ummadda Soomaalida ilaalin ayagoo ummadda Kenya ilaalin marka maanta Jubaland ay degta nabad ay hesho Soomaaliya ay nabad noqoto annaka 1 minute ma sii joogayno Jubaland ciidamada Kenyana farta yaa lagu fiiqin ciidamada Kenya waxay ku joogaan Soomaaliya magaca AMISOM ciidamada Kenya waa sidii ciidamada Ethiopia waa sidii ciidamada Burundi waa sidii ciidamada Djibouti marka anaga xogaa discrimination lagu sameeynina magaalada Kismaayo oo qiimaha leh ciidamada Kenya ay idin qabteen markuu Mzee Xaaji uu ahaa wasiirka difaaca marka walaalayaal nabad baa idin keenay waxaan rabnaa dowladda Jubaland dowladda Puntland dowladda Galmudug South West all the region in lisku imaado iyo dowladda madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo midnimo muujisiin inkoo mid ayay Soomaalida Kenya idinku faanaysaa inkoo mid ayay Soomaalida Djibouti idinku faani marka nimayo waa nagu noqonina islaantii uusan jirin oo uusatay oo meelo badan ka gubatay aan nagu noqonina marka soo dhawaada waxaan ugu dambeyn aan apology ka wadaa governorka Wajeer governorka Garis iyo governorka Mandera oo dibadda ku maqan waxaan mahad weyn u celinayaa deputy speaker-ka baarlamaanka sanadka Soomaaliya walaalkay Abshir Ahmed oo asagana meeshan joogo waxaan leenahay Jubaland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato dowlad goboleedka meelay jiraan Soomaaliya ha noolaadaan madaxweyne islaam waxaan leenahay ilaahay ha ku xifdiyo 4 sano oo soo socotana dowladda Kenya way kula shaqeyn iyo dowladaha IGAD. Assalamu alaykum.